arrimaha dibadda ee Soomaaliya waraysi khaas ah ayuu laanta af Soomaaliga ee BBC da goor dhaweyd siiyay isagoo jooga magaalada Dooxa ayaan telefoonka kula xiriiray oo aan weydiiyay sida dawladdiisa Soomaaliya u aragto go'aanka Kenya ee ah in qaxootiga lagu raro muddo 3 bilood waxaana wasiirku ku jawaabay horta anaga wali wax official oo dawladda Kenya noo soo dirtay ma jiro waxaan igu maqaalaa amba waxay tahay hatta UNHCR wax official oo loo soo gudbiyay ma jiro marka arintaasi iyadoo horta official ma aha hadii kalena waxa weeye in maaragtay Soomaalidu ay ku noqoto wadankeega cid walba way isku raacsan tahay international law baa jira agreement la saxeexday dawladda Kenya jiro oo la saxeexday jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo dadka qaar ka leeyahay waa muddo kooban yaadiga xuquuqda aadanaha ka qaylinaya human rights watch ku jirto marka idinka dawladda Kenya waxa wadan sharci ku dhisan oo constitution leh oo xuquuqul insaanka ka warqaba ilaaliyana wax meeshan force maartay waxa la yiraahdaa force repatriation uma malaynayo inay dawladda Kenya isku dayso inay samayso marka anagu diyaar baan nahay mar walba inaan dawladda Kenya iyo mataqaanaa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa aan kala hadalno arrintan sidii xal looga gaari lahaana laga wada tashado qof ma jiro adduunka qaxooti meel ku jira oo qaxootinimada mataqaanaa doortay ma jiro dadka dan baa ku soo qasabtay colaad baa ku soo qasabtay kiina way sii dhamaanaysaa marka waxa loo baahan yahay sida ugu wanaagsan dadkaana xuquuqdooda loo ilaalin karo dadka Kenya loo oran karo dadka iyagii in badan baa haysteen waad mahadsantihiin iyo dawladda Kenya in lagu dhaqaaqo wadi ma ku tahay in waqtigeedii aanay ahayn inta sababta oo ay adiga wada ka furan dalka Kenya waxa weeye company Kenyana oo sharci leh oo bixiya cashuur oo iibsada oo mataqaanaa bixiye license-ka lacag ma wasiir xawaaladaha la xiray xawaaladaha la xiray 13 xawaalo Soomaaliya way magacyo Soomaaliya wato maya magacyada Soomaalida ha wataan dadka iska original-koodu inay Soomaali yihiin way laakiin waxay ka shaqaystaan dalka Kenya macnaheedu waxa weeye waxa weeyaan shirkad Kenyana weeyaan ani hadda shirkad ka furto Nairobi shirkad Soomaaliya ma aha waa shirkad sharci Kenya marka hadalkaadu wuxuu dhacayaa wax naga quseeyo ma laha maya jirto taasi waxaan ku leeyahay in cidii wax lagu haysto lagu ogyahay sharciga la tiigsado wixii kalena waa sharci darro in laga xidho mataqaanaa laga xidho
baayac mushtar ku furan sharci waan diidanahay waanan kala hadalnay mana hagaagsana wasiir dadka qaar waxay leeyihiin dadkan qaxootiga Kenya muddo dheer bay soo martigelisay intaasi nagu filan bay leeyihiin dawladdiinan markaad eegto soo muuqato inaad ka seexateen waajibkiina inaad bulshadiina soo dhaweysaan oo mar horeba adinku aad go'aankaas qaadataan intii Kenya ay iyadu hormari lahayd farxan waxa su'aashaad waxa u egtahay inaad adduunka ka timi oo wax laga seexday aad sheegayso Soomaaliya 20 sano ay dhibaato ku jirtay 20kii sano ay ka soo baxaysaa wixii dadka loo qaban karaba waa loo qaban dad badanna waxay ku noqdeen Soomaaliya dhulkay ka yimaadeen dadka qaarkood waxay ku dhasheen qaxootiga meeshu hadda degan yahay Dadaab bay ku dhasheen meel kale ma yaqaanaan waxa weeye in si habaysan oo xuquuqda bini'aadanka raacsan oo ay ku jirto nabadgelyo inay dadkaasi u noqdaan dawladda Soomaalidana tamar intay leedahay had iyo jeer way ka hadashaa inta gudaha ku jirtaba ayaa iyaguna jirto dawladda Soomaalidu ay ka warhayso iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo wadamada kale ee deeq-bixiyaasha marka arrintaasi waxaan u maleynayaa inay tahay lagu degdegay waxaan rabnaa inaan kala hadalno dawladda Kenya iyo United Nations kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye oo boor dhaweyd igu waramayay telefonka magaalada Doha ee wadanka